اليوم نترككم ولكن صوتكم في الأذن دام، صوتكم في الأذن دام. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. وبعد، waxaan ka hadlayn waa sifaatul mar'ati saalixa, gabadha wanaagsan sifaadka laga rabo. waxa ugu horeeya gabadhu waa daacatullaahi subxaanahu wa tacaala fi sirri wal calan, wa daacatu rasuulihi sallallahu alayhi wasallam an takuna saalixa. gabadhu waa inay adeecdo, waa gabadha wanaagsan. rabbigeed waa inay adeecdo si hoose iyo si muuqataba, rasuulkeedana inay adeecdo, mid wanaagsanna waa inay noqoto. waa qodobka koowaad. qodobka labaad ee laga doonayo gabadha صالحة وأن تكون ذات الدين قائمة بأمر الله حافظة لحقوق زوجها. قوارنا وإني أهاتو قوار أهل الدين كتاغن أمرك إلهي هذا حفظين ننك هذا حقوق دو كليهي. وقضب كلمات. قضب كالسدحات وأن تحفظ في نفسها وماله في حال غيابه. ننك بركو مقيهي مسؤولية قوارنا صار نفته وإني إلاليس مالكي سنة مارت إلاليس سوو. qodobka muxuu ahaa isagana ku xiga afaraad wa an takuuna almar'atu shaakiratan lizawjiha fahiya tashkuru lilah calaa nicamihi alladii ancamaha. gabadhu waxa weye ninkeeda haddii abaal badan buu ku leeyahay, ixsaan badan buu u samaynaya, waa inay ku shukriso oo alla daraaddii ay ugu shukriso, oo nibcooyinkaas ee ninku ugu nibcey waa inay tidhaahdo ay u ducayso xataa waad mahadsanta khayr allah ku siiyo, ay u ducayso ay ku shukriso. qodobka kale ku xiga ee shanaad muu noqonayaa wa alla tarfaca sawtaha calaa zawjiha idaa jaadalatu. ilaa moogtaa mararka qaar waa la isku yara dhacayaa oo waa la yara murmayaa oo dee carabi ilkaaba isqoomahayo, laakiin waxaa la doonayaa mar walba gabadh ninkeeda markay la hadle hadalka inay hoos u dhigtay si oo muxuu ahaa ayaa marka la doonayaa. qodobka kale wa an takuuna saabira calaa faqri zawjiha in kaana faqiiran. adduunyaa lagu jiraa soomaa, waxa weeye ninka hadduu waxba haysan gabadha sabar baa loo baahay, qof safraa sidkiisa helay soomaalidu yidhahdaan. qodobka kaloo ku xiga waxa weeye gabadhu wa an takuuna zaahidatan fi dunya muqbilatan fi laakhira tarjuu liqaa'a allah. gabadhu waa inay zaahido tahay oo adduunyada waa inay ka zaahid, aakharana waxay u jeesato ayadoo rajayn ilaahay la kulankiisa. waa soo qaateen mawduuci azuhd waraqaa'iq duruusta ama dowradu ka mid aha. waxaa ka mid waxyaalaha sifaadka wanaagsan ee gabadha laga doonayo wa an turabbiya abna'aha calaa maxabbati illaahi wa rasuulih wa an turabbiya calaa ixtiraami waaliday. waatii hadda sheikhu ka hadlayo owlaadda iyo carruurta, gabdhaha waxaa la doonaya inay tarbiyeeyaan oo alla ay ku xidhaan, oo maxabbadiis alla maxabbadii rasuulka jacaylkiis iyo waalidka in la xurmeeyo iyo tarbiyadaas waa mas-uuliyad gabdhaha laga rabo. midda kale la doonayo waxaa weeye gabadhu waa inay ilaaliso wa an tuxaafida calaa maa farada allaahu min alcibaadaat. haddii gabadhu waxaa la rabaa cibaadaadka iyo waxyaalaha ilaahay uu ku faradlay waajibaadka, haddii waa inay ilaaliso. waxaa ka mid sifaadka wanaagsan ee gabdhaha ama gabadha muslimadda laga doonayo wa an laa tas'ala dalaaqa calaa zawjiha fa innahaa muxaramatun calayha. wax dhibaatoo jira male, reerkii waa alxamdulilah ilaahay mahaddii buu gaaray. gabadha marka inay tidhaahdo ninkii iska kayfur oo dalaaqa ayada ay weydiisato, arrinkaas arrin habboon ma aha. adilana way leedahay, waciid baa ku yimid bilaa sabab inay marka iska weydiisato dalaaqi. maya, gabadha wanaagsan sifaadkeeda ama tilmaamaha lagu yaqaana ma aha. waxaa ka mid sifaadka wanaagsan oo laga doonahay gabadha muslimadda ah wa an tabtacida cala alaafaati lisaan. afkeeda inay qabsato. aafaatu lisaan baa jir inay ka fogaato wey, xanta namaamka waa midda hadda sheekhu ka hadlahay. midda kale waxa weeye sifaadka wanaagsan oo laga doonayo gabadha muslimadda ah wa an takuuna xariisatan cala alxijaabi sharciy. gabadha waa inay ku dadaasho xijaabka sharciga. waayahan waxaa soo baxay mid yooyo wuxuu yahay baan la aqoonin, ama kuwa waxaa soo baxay wejigana niqaab baa ka saaran, lugihiina waa xaydan waaba bannaan yihiinba. bal adigu sidheh lagu la bannaynaayo yaa niqaabna waa la wataa, lugihiina waa la xaydanayaa sida reer baadiyihii. waxaas marka looma baahno.
sifaadka gabadha muslimadda maaha waa inay lagu heeda qarsato sifada kale waa in muxuu ahaa gabadhu wa an takuuna xaafidatan lil asraar gabadhu waa inay ilaaliso sirta guriga waxa way sirta ninkeeda muxuu ahaa arrimaha asraarta iyo guud ahaan muxuu ahaa asraarta muslimiinta inay ilaalisaa laga doonayaa waxa way asraarta gabadha waa soo gaabinayaa marka waxaa ka mid sifaadka wanaagsan wa an takuuna saabiratan cinda shadaa'id adduunyaa lagu jiraa mashaakilaadkana hadda waa fara badan yihiin waxaa la doonayaa marka gabadhu sabar baa la rabaa marka akhiiran waxaan ku soo gabagabaynayaa gabadhu waa inay ahaato an takuuna xariisatan calaa tacallumi cilmi sharciy waa midka hadda aad u fadhidaan dowladda aad ku soo qaateen gabdhuhu waa inay ku dadaalaan cilmiga sharciga barashadiisa guryo fadhi iyo muufadubid iyo ilaahay kuma abuurin ilaahay wuxuu kuu abuuray inaad asaga caabuddo inaad wax barato madaarista inaad imaado oo waxa weeye daaciyad aad noqoto kaalintiina aad qaadataan ayaa marka la doonayaa wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu